waxaa khudbadeenu ay ku saabsan tahay shayga loo yaqaano ladhatul cibaada, macaanka ama dhadhanka ay cibaadadu leedahay. waa 10 inagu yar ama aynu odhan karno dareenkaasi inaguma badna ama uu yar yahay, dadka qaarkoodna wuu ka maran yahay. sidaynu ogsoonnahay cibaadadu waa cunnada ruuxda. ayaamihii ramadaantii way inoo macaanay camal badan oo isugu keenbiiray daraaddeed, oo cibaadadu dadka dareen bay u samaynayso. waa tii lagu soo xoomayey salaatuleylka iyo taraawiixda dadku aada u xiiseynayeen. waa dhadhan baa keenaya qofku, laakiin had iyo jeer markaa dadkii bishii ramadaan ay u dhammaatay isbeddel baa yimid. marka waxaynu baraarujin lahayn xiisaddaa iyo casharkaa waynu u baahannahay inaynu bal arrintaa isku baraarujinno. sharcigu siduu u qiimeeyey, cibaadadu dhadhan ma leedahay, maxaa lagu helaa, maxaase lagu waayaa. waxyaabaha lagu helo waxaa ka mid a sunnaha oo la badiyo. cibaado waliba sunnay leedahay la socdee, ha fudaysanin. salaada sunnaa la socda, rawaatib la ydhaah. soomka sunnaa la socda, inoo yeelo ilaa 10 qaybooda oo shawaalku u soo horeeyo. sadaqadu sunnay leedahay, sekada la socota. xajku sunnuu leeyahay, arkaan islaamka iyo cibaadooyinka mid waliba sunne ku lamaan oo ku lifaaqan bay leedahay. ilaahay baa xadiid alqudsi waxa uu ku uhi wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxiba. addoonkaygu mar kastuu ku dadaalo inuu sunnayaasha badiyo, wuu igu soo dhowaanaya, wuu igu soo dhowaanaya, anaa jeclaanaya oo ilaalinaya. waxyaabaha aynu ku heli karayno waxaa ka mid a alta'amulu fii siyari الصaalixiin, dadka wanaagsan iyo dhaqankooda inaynu taariikhdoodana akhrino, ciddaynu wanaag iyo khayr ku tuhmaynana ka ag dhowaano, inu ku dayanno. waxyaabaha cibaadada dareen iyo macaani noogu samayn kara weeye. jacfar ibnu sulaymaan imaamkaasi waxa uu leeyahay kuntu idaa wajadtu fii qalbii qaswa gadowtu fanadartu ilaa wajhi muxamed ibni waasic kaannahu wajhu hukla. markaa naftayda ama qalbigayga wax ka yaro garan waayo ee ayaamaha cibaadadu ay yaro dhadhami weydo, waxaan u tegi jiray caabidkii weynaa ee moxamed ibnu waasic la odhan jiray. wejigiisaan fiirsan jiray, waan eegi jiray, waan dhugan jiray. markaa waxa aan u arki jiray buuhi wejigiisu inuu u eg yahay hooyo goblantay wejigeeda, siduu dhulka ugu ruquusayo, ugu camcaminayo, sujuudda u badinayo. sidoo kale waxa uu leeyahay cabdullaahi ibnu mubaarak, taabicigaa jaliilka raximahu llah, fudayl ibnu cayaad markaan aan u taga buuheen eego juddida liya alxusnu wamaqadtu nafsi. markaa fikirkaa igu bilaabmi jiray, naftaydana waan karaahaysan jiro oo inay gaabis tahaydaan dareemi jiray. idan markaa qof wanaagsanood ku dayataa ama aada la noolaataa waxa ay kugu dhiiri gelin kartaa wuxuu wado iyo dareenkiisa, sida qofka xumiba saamayn uu leeyahy. cibaadadu inay inoo macaanaato waxyaabaha inoo keeni kara waxaa ka mid a qur-aanka kariimka aynu akhrino innagoo macnihiisa dhadhaminayna iyo cajaa'ibta uu leeyahy. jannuu ka warramayaa, naar buu ka warramayaa, ummado la halaagay buu ka warramayaa. waxaynu dhegaysanaynaa ilaahay oo dhaadanayo hadlaya, anaa sidaa yeelay oo anaa sidaa yeelay, anaa saa yeeli doona. marka waxaasoo dhan marka aad dhegaysatay qalbigaaga iyo maskaxdaada ku ururaan, waxay keenayaan in dareenkaaga wax iska bedelaan oo cibaadadii ay ku dhadhanto. marka alcayshu maca alqur'aan, qur-aanka kariimka inaynu la noolaano iyo inaan fudaysanin oo aynaan ka haajirin qur-aanka. waxaa ka mid a waxyaabaha lagu helo dhadhanka cibaadada alkhulwatu billaahi subxaana, inaad isku dayda bal ilaahay inaad weheshato. ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطan waaqwamu qiila. waqtigii buu ilaahay kala qaaday, markaasaa wuxuu tilmaamay habeenku inuu yahay mid deganaanshihiisuna badan yahay marka la cibaadaysanayo. qur-aanka aad akhriyaysiyo hadalkaagana si fiican aad u dhegaysanayso. marka waa inuu jiraa waqti ilaahay aad gaar u siiso oo ilaahay aada la faqdo oo aada weheshato oo aada barido oo qalbigaaga soo jeediso oo bowbowdii iyo balaadii adduunyada iyo dadkeedii iyo saxmaddeedii aad ka soo dhex baxdo. waxaa jiray a'immadii saalixiinta ahaa ee wanaagsanaa nin ka mida oo la odhan jiray maalik ibnu muqafal ayaa kaana yajlis fii beytihi kaiira, in badan buu gurigiisa fadhihi jiray
kolkaasay yidhaahdeen miyaanad cidloonayn carruurtii lama noolid xaaskii lama noolid saaxiibadii suuqii waan iskaga tagto gurigaad u badantay markaa waxa uu ku jawaabay kelmad cajiib ahoo waxa uu leeyahay aw yastawxishu maca allaahi axad oo qofka ilaahay la fadhiyaa miyuu cidloodaa qofka ilaahay la fadhiya weheshanaya la faqaya baryaya la kalaamaya miyuu cidloodaa buuhi ma cidloodo waxa uu isaguna lahaa xabiib abu muxamed oo in badan isaguna khalaawada badin jiri man lam taqara caynuhu bika falaa qarat caynuh waman lam yanas bika falaa anis ilaahay qofka ishiisu aanay adiga kugu qabowsan wehelkaaga ama adiga aan ku weheshanin ishiisuna yaanay qabowsanin wehelna aanu helin wacaalamaynaan gaadhinba in yar haddaad meel fadhido waxaad dareemaysa inaad xabsi ku jirto ama aada masaajka yaro fadhido kii lala qayilayo iyo kii lala sheekaysanaya iyo kii lala haasaawaya gaadhsii baa ka dhacaysa iyo kelibaa meesha igu dishay arrimahaasoo dhan waxay tilmaamayaan runtii inaynaan dareemin macnaha ah inuu addoonku ilaahay wakhti siiyo subxaanahu wa tacaala waxyaabaha aynu ku heli karno cibaadada waxaa ka mid a albucdu can ilmacaasi inaynu caasinimada iska dayno caasinimadu waa ilaahay oo lagu gacan saydho oo aan loo heelanaanin oo aan amarkiisa la qaadanin ama aad ka warwareegto markaa qofkii waa caasi hadduu qofku caasi noqdana cudur baa haya hadduu qofka cudurku hayana cunadu uma dhadhanto kana marka uu caasi noqdo cibaadadu uma dhadhanto waa saas oo kale marka arrintaasina aad bay muhiim u tahay yaynaan fudaysanin wixii macsiyaha ilaahay lagaga fogaanayo yaxya bnu mucaad isagoo tusaalaha bixinaya waxa uu lahaa saqamu ljasadi bilawjaac jidhku cudurkuu la bukoodaa wasaqamu lquluubi bidunuub qalbiguna wuxuu la bukoodaa caasinimada iyo gafafka noocyada kala duwan leh فكما لا يجد الجسد لذة طعام عند سقمه فكذلك القلب sida had iyo jeer jirku uu cunada u dhadhamin waaye carabka ugu macaanaan weyda cunadu markuu qofku boko qalbiguna asaas oo kale haduu bukoodo waxyaabaha ka inaga caawinaya waxaa ka mid ah inaynu cibaadada macaansano ataqallulu min almubaaxaat waxaan inoo xalaasha ah inaynaan ku dhexdhicinaynaan badsanin ee aynu soo koobno waa hurdadii iyo hadalkii iyo shaqadii iyo cunadii waxyaabahaas oo dhan haddaynu ilaahay baa ku xalaaleeyay laakiin ha badsanin oo aada xadda ha ka saarin axmed ibnu xarb caabidkaasi waxa uu lahaa cabadtu llaha 50 sanata famaa wajadtu xalaawata alcibaadati xataa taraktu 3 ashyaa konton sanaan ilaahay caabuda macaanka cibaadada maan dareemin 3 arrimood jeeraan iska daayay taraktu rida nnaasi xataa qadartu atakalamu bilxaq inaan dadka raali geliyo waan iska daayay markaasaa waxaan awooday inaan xaqa ku dhawaaqi karo waa ilaahay waa la raali gelin karaa radia allaahu canhum waraduu can qur-aanku wuxuu inoo sheegay dad ilaahay uu raali geliyo iyaguna ilaahay raali ka noqday laakiin dadka lama raali gelin karo rida nnaasi gaayatun laa tudrak xikmadaha waxaa ka mid ah inaad bani aadamka raali geliso waa meelaan la gaari karinba raggii tijaabiya waxaa ka mid ahaa saxaabigii mucaawiya ee madaxweynaha muddada dheer ahaa muslimiinta u ahaa waxa uhi dadka o dhan waxaan isku dayay inaan raali geliya ila alxaasid fainahu laa yurdiihi canii ilaa zawaalu nicmati canii xaasidku aniga igama raali noqonayo ilaa aan waayo wuxuu igu xaasidayo dee waaba qof adiga ku baadi doonayaba inaad meesha ka baxdo la waayo marka dadka haddaad istilaa raali geli iniba inbay kuusii dhiibaysaa iniba inbay kuusii dhiibaysaa ilaahay baa kugu cadhonaya subxaana wa tacala taa waan iska yareeyey buui waxa labaad oo iyadana aan yaraystay buu leeyahay isagoo inoo tilmaamaya xikmaddaas laga soo warinaya axmed ibnu xarb inaan la saaxiibo dadka faasiqiinta ah dadka wanaagsan baan la saaxiibi jiray markaa cibaadadii way ii dhadhantay oo iyagaan ku dayday buuri waxaa kaloo aan yaraystay adduunyada iyo dhex cararkeeda iyo isku mashquulinteeda aakhira ii dhadhantay buuri in loo fikiro qur-aanka kariimkaa waxa uu leeyahay macaansi macnaha wax cibaadooyinka noocyadeeda kala duwan nusuusta waxay noo tilmaamaysaa iyo taariikhda dadka saalixiinta in la macaansado qur-aanka waa la macaansadaa
عثمان بن عفان وحو لي هدي قلبي كانوا نظيفة أهان لها قرآنك كمينا درقنين قرآنك كمينا درقنين النبي صلى الله عليه وسلم وحاوت المامة أن للإيمان حلاوة صدح الرماد قفك السماية معانك إيمانك هلا يبو نبي إيمانك إنه معان لا يبو شيء صلاة أيو لا هاي وحكون راحيست نفط إذا كن راحيست حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة الدنيا ذا هيسان لبو برانوكو تعالي وحا أدقون يحاسس كيغا وإلها يحلالي cibaadadana waxay ku qabowsataa naftaydu ku nasataa salaada waa salaada aad aragtay sida ay nagu tahay waxa la macaansada qiyaamul leylka oo dadkii saalixiinta oo wanaagsanaa waxay oran jireen habeenkana waanu ku faraxnaa markuu soo galo maalintana waanu ka naxnaa waayo habeenka dhadhankii baa noo bilaabmaya cibaadada maalintiina buuqii iyo adduunyada balaayadeedii baa bilaabmaya waxa la macaansada infaaq wax waliba barashay leey bakhaylnimadana waa la bartaa bixintana waa la bartaa marka qofku haduu wado marka dambe inuu bixin waayaaba culays iyo ciriiri ku noqonayso waxa la macaansada cilmiga sharciga barashadiisa waa dhalinyarada doorkay qaadanayaan caajisnimadana waa la bartaa iyada meelahan iska fadhido cilmiga daalacashadiisa iyo qoristiisa iyo faafintiisana waa la bartaa waa la macaansadaa siduu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ku tilmaamay manhuumaani laa yashbacaani taalibu cilmin wa taalibu dunya laba mamana ma haraadani ma dhargaan qof adduunyo doonaya iyo qof cilmi doonaya waa qofku cilmigu u dhadhamayo waxyaabaha inoo diidaya waxaa ka mid a cibaadada macaankeeda inaynu dhadhamino saa aynu horeba u soo sheegnay caasinimada waxay noo diidaya allaha inaga badbaadiye munaafiqnimada oo qofka haddii istusnima ay gashay iyo ismaqashiin dadkunbuu eegayaa ilaahay eegi maayo hadduu dadka eegana arrinkii ka dhimay oo ilaahay ishiisa aanu iska eegin subxaana wa tacaala marka daacadnimadaynu ku dhowaanaynaa nafteennaynu baraynaa inay cibaadada marka ay gudanayso cibaadada aynu daacad ka dhigno oo ilaahay aynu iska dhisno subxaana wa tacaala oo inaan cid kale eeganin waxaa cibaadada dhadhankeeda inaga yarayn karaa kathratu mukhaalatati nnaas dadka in lala noolaado in badan oo la badsado oo lama doonayo dadka in laga dhex baxo waana la kala faa'iidaysanaya waana loo faa'iideynaya lamana doonayo in lagu milmo oo ay ku wada macaansadaan ay kuwa muudsadaan ubadkaaga ehelkaaga ummadda oo lagu waayaba waqtigii cibaadada iyo waqtigii ilaahay subxaana wa tacaala ay kaa qaadaan marka arrimaha waa la dhexdhexaysanaya dadku waqti bay leeyihin ilaahayna waqti buu leeyahy subxaana wa tacaala marka haddaad iyaga un ku warwareegto oo aad weydaaran weydo wixii ilaahay uu xaq kugu lahaa baa yaraanaya waxa afraad oo dhadhanka cibaadada inaga luminaya taxawulu alcibaadaati ilaa caadaat inay cibaadadii caado weegaato waa ka ilaalinaynaa la dhaqankana dadku iyo waxyaabaha kuu gaaraya cibaadooyinka iyo cibaadadu ha kala duwanaato saacadaad guriga joogto saacadaad suuqa joogto saacadaad bakhaarka joogto waa inay ka duwanaataa saacadaad ilaahay caabudaysa subxaana wa tacaala ama masaajidka ku caabud ama meel kaleba ku caabudo oo aad jawi gaara isu diyaarisa inaad galayso laakiin haddaad hamigaagii xambaarsan tahay oo moobaylkaagii xambaarsan tahay oo fikirkaagii iyo saaxiibadaadii iyo buuqoodii xambaarsan tahay oo adigoo hamaansanaya intood masjidkii soo gasho adoo hamaansanaya aad ka baxayso waxay ka mid tahay un hawshii routiniga ahayd ama wareegii aad ku jirtay maalintii ayuu masjidka iyo cibaadadiina ay ka mid noqonaysa marka maad galin jawi kale oo ka duwan kaagii caadiga ahaa idan markaa saacadaynu ilaahay siinayno caabudayno waynu isu diyaarinaa bal inaynu isyar bedelno aynu iska furfurno xarkihii adduunyada iyo hamigeedii iyo buuqeedii si aynu ilaahay si dhaba isugu hortaagno subxaana wa tacaala oo qiiro iyo jibbe iyo jacayl uu inoo geli karo